أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومدى الصومالية ميلي تشوغان بوا سلامي سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan hadda u soo galay iyadoo waliba goortii hadda la iska seexan lahaaba ay tahay waxay tahay in aan isoo gaartay in culimmadii qaarkood la handaday oo loo dhaartay oo maaragtay in culimmadii qaarkood culimmadii loo dhaartay oo qaarkood la handaday waxa lagu handadayaa ama waxa loogu dhaaranayaa ay tahay wacyigelinta iyo wanaag u sheega ummadda iyo xumaha iska reebistiisa adduunyada inay gadoontana dabeecadaheedii waaba dabeecadahaasaaba lagu garanayaaba in macnaha wanaaggii ummaddii sheegaysana maaragtay la handado oo macnaha lagu dhibaateynayo iyo in maaragtay xumihii in la boorigeliyo oo la dhiirigeliyo la doonayo qabyaaladii iyo qoqobka iyo diilka dhiigga dadkoo la iska banaysanayo iyo waxaasna ay macno yeesheen wixii wanaagsanaan ay macno beeleen marka culimmada loo dhaaranaya waxaa loogu haystaana wax kale ma ahan wanaagga ay sheegeen especially sheekh baaruud markaan ka soo qaado oo shirkii macnaha iskuul bulisiyo macnaha wacyigelin iyo weliba dardaaran iyo ballanqaad shacabkii asagu ku kala tageen ahaa dadka dowladda lugaha qabanaya oo laga shaqayn laayahay oo fashilmay oo wixii ayagu markii horeba ay fursadda u helaan ay macnaha waxba ka qaban waayeen hadda doonaya inay meeshii Soomaaliya ay ka soo dhaqaaqday ay ku celiyaan 8 bilood ka hor meeshay ka timid iyo 9 bilood ka hor inay dib ugu celiyaan kuwa doonaya weeyo waxa macnaha halkaan horta handadaada iyo dhibka ka wada runtii waxaana fiican in la waantoobo wuxuu moogtahay haddaad fashilanto haddii lagu fahmo siyaasadda waxaa fiican in laga hara marka dumarka iyo carruurtu fahmaan mar haddii siyaasaddaada dumarka iyo carruurtu ku fahmaan kifa baa la sameeyaa waa la bedeshaa waa la diga bedeshaa waa la rogo bedeshaa wixii maarta waa la iska bedelaan laguma taago daqiiqihii laguma taagnaad carruurtiina agu kugu bartaan siyaasadda ragga fashilmay carruurtiina agu waa fahmeen marka waddadaas waxaa fiicnaan lahayd inay ka waantoobaan inay dadkooda u tanaasulaan inay dalkooda u tanaasulaan inay dhalantooda meel walba ku baaba'aysa oo xabisyada ka magafuhu maxaadata uu toorjarahayo oo meesha lagu kaliyaha iyo sambabada looga baxsanayo horta inay u tanaasulaan yaa u fiican hadday teedii waayeen iyo say wax u marsan lahaayeen hadday kollay waayeen dee waxa u fiican inay tanaasulaan waxayna u tanaasunayaan dalkooda iyo dadkooda intay hadda dharka qabaan oo weli odayaal noo yihiin oo weli maaragta wuxuun karaamaa u harsan tahay yaa u fiican inay tanaasulaan waxaad ku tanaasuli doontaan haddii kale karaamo darro intaan ka sii xun karaamo badan haddaba idinma taalo oo dadkii dalka iyo dadka baddaba gaday baa tihiin oo dadkan maxay ahayd aan manaxiyaashaa baa tihiin oo dadka aan shacabkooda ka nixin baa tihiin marka iyadoo taa laydinku yaqaano weli haddaad hadda iska hartaan waa laydin cudur daari lahaa oo hadda waxaa la waxbaa u dhimanaa oo waxbayse waysan maamulkaysan aqoon adigu meel baa idiin fiirfiirinlahayn si kastaba iska ahaatee haddaad hadda iska tanasuli lahaydeen wuxuun baad idiin qiil bixin lahayn oo odayaal baad noo ahaan lahaydeen laakiin hadda sida aad wax ku wadaan wallaahi waa si inaa odayna noogu ahaan doonin hadda dhar baad qabtaan dhar la-aan aad ku bixi doontiin ilaah baan ku dhaartay dhar la-aan inaad ku bixaysiin bay u agtahay marka aliin hadduu alla yahay nimanka mucaaradka ahow culimmadayada noo daaya oo dowladdayada noo daaya oo na daaya aliin hadduu alla yahay dhalinyarona waxaan leeyahay dhalinyaroy nimankaa iska qabta nimanka culimmada u dhaaranaya nimanka dowladdiina idinka hortaagan nimanka adduunyada nolosha idinka hortaagan oo idin dhibaataynaya aakhirada ismeel xun idin geeya cadaabka idiin diro dhagaalka sokeeya idin geliya waray nimankaa iska qabta war nimankaa iska qabto nimankaa iska jira oo culimmadiina iyo dadkiina wadaadadiina ku xirnaada oo dowladdiina ku xirnaada oo garab istaaga marka culimmada halkan loo dhaaranayo afqur caawa hadday u dhintaan nimankaasaan u haysanaa haddaba hala ogaado haddaba taa hala ogaado nimanka cabdishakuur u horeeyo iyo nimankii maarata hadda shirka la galay culimmada oo faarac cabdiqaadir iyo lahaa nimankaasoo caawa culimmadaas haddii afquruna u dhintaan waa idiin haysanaa ogaada
midda kalena marka la leeyahay sheekh baaruud waa hala masaafuriyo oo xagee loo masaafurinayo waddankiisii buu joogay dalkiisii hooye xagee loo wadaa shalay baa maaragtay mid aad masaafuriseen idinku laftigiinu aad keenteen baad lahaydeen waddani baa la dhoofiyey haddana marka siyaasadda mar walba waxaad u qabtaan dadka inaad ka caqli badantiho hadda dhankaa rabtaan ma u dhigaysaan qaarna waxaad leeyahay muwaadin baa la dhiibay hadkana waxaad leeyahay hadda hala masaafuriyo sheekh baaruudna waxaa la leeyahay hadda hala masaafuriyo kii maxay Ethiopia loo dhiibana waxaa leeyahay maxaa waddani baa la dhiibay loo dhiibay yaad awrka ku kacsanayseen wallaahi sheekadiina la jiifiyaano bannaan bay horta u eg tahay kow dheh laakiin la jiifiyaano bannaan la jiifiyaano bannaan carruurtii islaamiga waa fahmeen islaamiga carruurtii taa waa fahmeen iyada marka wax kale hala raadsho waddo kale hala raadsho kolley waxaan u malaynahayaa idinkoo wala waddo kale ku maqan yaa waagu baryi doonaa waxaa iga soo dhex galay kool marka waxaan dhalinyarona leeyahay dhalinyarow istaaga oo raggaa iska qabta oo caqligiina ku qabta oo aqoontiina ku qabta oo la shira oo u yeera oo la xisaabtama oo su-aalo weydiiya waxay ay rabaan ha looga jawaabayaa su-aalo weydiiya sidee wax u rabtiin dhaha dhalinyarada iyo meelaha fagaaraha iyo madasha ha loogu yeelo raggan halaya war waxaad naga rabtaan sheega ilaa waddankan waad soo hayseen oo madax baad ka soo haddi waana soo maamusheen wax maanta aadna leedihin war waxaasaan idiin qabanay iyo maarata halkaasaan idinkaga qabanay oo tusaysana taabsiinaysaan ma jira hadday jiraan ilaa ma ogine waxa hadda dadku hadda ogyahay ma jiraan wax dadku gafay hadday jiraan ha sheegeen haddaysan jirin soo maaha allahood hadduu alla yahay hana daayaan nimankaas dhalinyaradu waa inay la xisaabtamaan oo ay la xisaabtamaan oo yiraahdo war waxaad nagu haysataan iyo waxaad noo qabanaysaan iyo sababta aad dowladdeeda aad nagu u haysataan iyo sababta mooshinada u raadinaysaan iyo sababta culimada u handadaysaan niman yow sheega la yiraahdo waxaad naga rabtaan sheega iyo waxaad naga rabtaan sheega marka dhalinyarada laftigooda waxaa laga rabaa inay la xisaabtamaan dadkii la xisaabtami lahaa dhalinyarada waa idinka la xisaabtama raggan dowladda wixii idinkaga maqan waa la idinka siinaya sheega dheh waa annaga idin dhaxadhe dhalinyarada waa inay taay istaagaan dhalinyarada ha istaageen dowladda iyo maarata dadka maarata mucaaradkaba iyagaa u dhexeeya labadaba hay la xisaabtameen mucaaradku wax macno sameynaya hadday ku mucaaradayaan dowladdana dowladdu waa ka garbaxaysaa waa in dowladdu ka garbaxdaa haddii kale soo maaha walaale waa inaad hangool ganale inaad iskaga qabataan weeye waa inaad iska qabataan dhalinyaroy idinkoon u kala harin idinkoon macnaha qoqob iyo qola aysan idinku jirin waa inaad iska qabataan raggaa waa inaad iska qabataan raggu waa rag soomaaliyeed laakiin haddii damiirkii soomaalida uu ku yaraaday oo daqmashadii ay ku yaraatay oo ay macnaha dan gaara waxaan ahay aysan danaynayn hadda waa in la iska qabtaa waa lagaba maarmaan wixii ka maqan dhalinyaroy weydiiya nimankan inta u yeertaan weydiiya ragyo maxaa idinka maqan dheh waxa idinka maqan oo dowladdu idinka haysato sheega dee inta aad ku leedihiin sheega dowladdan annagaa dooranay annagaa la soconna annagay dan noo haystaa waxa idinka inkaga maqan sheegta dheh ha lala xisaabtamo oo ha la weydiiyo arrintu marka hadday intaa waxay sheegaan annagu hadda waxay soo abaabuli doonaan ma naqaan laakiin wax muuqdo ay sheegi karaan oo haddaba laftigeena aan ugu garaabi karno hadda ma jiraan shalay bay madax noo ahaayeen ragga yagii bay ahaayeen madaxdeennii bay ahaayeen dadka yagii bay ahaayeen laakiin kama aanaa helin wixii aan ka falaynay iyo wixii aan uga fadhinay waxba kama ay qaban baahideennana kama aysan damqanin danahooda iyo ayaga afaarahooday ku maqnaayeen iyo wixii markaa iyaga aragtidooda siyaasadooda ay markaa la qurxoonayd laakiin aan dalka iyo dadka dani ugu jirin oo wax macnaha markaa aan u soomayna waxba ugu soo kordhin marka haddii marka waqtigoodii uu saa uga dhammaaday hawlo qabya u ahaa hadday jiraan oo laabadii bay gadeen bariga ay ku daraan ay arrintu ahayd haddaba dee taa ka yeeli mayno allah naga soo gaaray rabbigi raxmaanka ahaabaa naga soo gaaray markaas badii baa hadda qayb ay gadeen muran ku jirtay oo maxkamadda heeg inay jirtay waa ogeyn dekado badan baa hadda yaa qaar bar la haystaa marka annaga macnaha bariga inta dhiman hadday rabeen inay ku dareen iyo badaha qaybta inta ka hartay